لأن هوانيدا مسلم كا غوريا كان سو دسران كا wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta hadii la yidhi waa urban atraba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xural caynta ku sifeeyay inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajiro alxayaa qayb ka mid waa madmuum qayb ka midina waa mamduuc waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum baylay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecel kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxaydan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaala sadaradeed kalimatu ar-rafath ay culimadu leeyihiin loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo waxaydan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis عصية وحباي قادة حنيستي إذا كانت تصبح باي قادة يبقى اللي يروح مال فريستي ويولد ولا واحد كويل هذا ما بعد هذا من هذا لبضنا وضد خلفقه إن العصوص برطوم رياح الحلاتو اسكنا لالسو هدنا وردي مال فريستي ولا بكلا فوق بيكويل هذا مرقاسا واحد تري بيل هذا بيت أيلادي إلهي دم يقول يا هانو ربنا نضيعه دالك يا مرادقة كنيجا حقي سنة طيب يقول هذا يران ربنا نضيعه بيلاده يعني لو هو بنايم سويت النبي صلوات الله وسلامه عليه سنوح المامي حديث جامع صغير كفوقر صحيحة والباني كنت المامي ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ما يديش يقابلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه هوينكين أهل الجنة صفة كوالي ونبي سيوح الولود العقود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوينكين نكوى أهل الجنة وحويا الودود وهطن كذا جعل كبارا كسي فوضان جعلك كان أهل الجنة هوينك مسلمات كدوني ذا جوغي جنة قلية صفادي لغوه الرئيسية وحكام داينا نغطام حي تجعل لن كذا ووحدا رئيسة وعقودة خير يوناقو لن كذا كلا نقونيسة تحدي أي واحد انتو أما يدا الله ديبو انت لن كذا قعنت قبطو تلاغا والله أنا وحبدا دميني لا أترالي نقطمو يعني دي حتى يدا الله ديبو نبو لي أمسي يدا واحد بتو مركز توا أتاقن إني كذا رالي قليسو ولذلك يا لورا دويل قبل الله إذا دام رايكن كألين بو قرأيو بحيان ترجمة ديسا الزوجة المستسلمة وحيث المامسة وي قبل قورستي دبتنا مدمر كيشوغين بيني كيدي ستيلين واسكا كرابتاقين وحي لادا نوع من فيمنست جروبيا دي باب كما يكسو قرطين إني كيسكاد عيسو سكالي سوا كاسي markii damba waxaan fakray bay leedo raadiyay maxaan anigu ninkeygi u waayay reerahan jaarkay dadkana wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsan walidaalk baa waxay qortay book ay raadaan tabcadi koowaad ba 100 kun oo xabaa la qaatay ay u bixisay almara almustaslima istaslimi li zawjik bay buuga fikradiisa dhamaynta ninku waa libaax bay leedahay hadii aad isku soo taagtana wuu ku cuni hadaad u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leedahay waxa ku jira sadaradeed jajabni isdiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinaya hadaad adigu isdiibto wax kasta waa lagu siinaya sadaradeed baa Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi ayaa intaan weel wax ku cabba nabiga ayaan u dhiibaa bay leedahay dabeetana markaan u dhiiba wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray ki dareerkeedu ku yaalo ka daba cabba nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu alayhi afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba markaa inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhadheen laf baan feentaayo halkaan ka goostay oo intaan feentaan u dhiiba halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa in muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi sidoo u dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga sidoo uga dhaqmay inay ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo ku jiifsanayo
haweenkii biknik baan wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay lintanazul waa nabi iyo rasuul waliba goorma jooga dhowr iyo konton jira odhan anigu oday baan ahay oo dee dhalinyarada raacraacda islaamaha ama ma dabagala maaha waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowr iyo toban jira la socda waa madiina iyo nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo konton jira ayaa waxay leedahay biknik baanu wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh ma qarsanaynin xataa kalgacalka innaga waxa laga yaabaa ninku nin soomaaliyeed ba kudha gabadhaadaba jeceshay hayru macquul waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay nabi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dadka yaad u jeceshay dee caasha buu yidhi nebigu in nabi maxamed su-aala la weydiiyo dadba yaad u jeceshay oo yidhaahda caasha markaasay idhahdeen raggaanu u jeednaa markaasuu yidhi abehe abubakar idan waxaa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxaa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan uu jecel yahay maaha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yidhahdo reerkaygii ay afka kala warwareegayaan marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahy asalku laakiin waxa weeyaan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray caaisha waa tii xadiidka saxiixa ku tilmaamaysay saxiixu muslim ku yaalay marka neef la qalaba nebigu wuxuu idhaahdaa khadiijo asxaabteedii hilibka wax uga dir haatay caaisha lahayd weligay gabadh kuma hinaasin haweentaa dhimatay oo aanan isa soo gaadhin sidaan ugu hinaasay bay leedahay siduu nebigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan ugu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bale asxaabteedii dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay